marka Ustaad Maxamed Daahir ayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo inta badan ardayda soo qalin jibinaysa ama dadka shaqada raadinaya markay CV-ga qoranayaan CV-ga inta badan qaladaad badan ayaa lagu arkaa cover letter-ka ee dadku markay diyaarinayaan qaladaad ayaa laga arkaa marka qaladaadka badanaa la arko inta uu ay aragnimo u leeyahay maxaa kamida inaan noo sheego waan rabnaa waxaan kaloo rabnaa CV-ga markaad diyaarinaysid dabcan waxay u baahan tahay qofka loo shaqeeyaha ah ee aad rabto inaad shaqo ka heshid iyo CV-gaada aqoonta iyo waaya aragnimada iyo khibradda aad leedahay inay islahaadaan muhiimad intee leeg ayay leedahay waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galno programkan jiheeye si ardayda suuqa soo galaysa loo jiheeyo waana program fiican in halkaa laga sii wado aniga maxamed waa isku xidhannahay arday badan oo tiraba maaragtay badan baan interview gareeyey qaarna hadda waa ii shaqeeyeen qaarna waan waitlistkan geliyey horta waa programka kan oo kale aan ku arkay in ardayda la siiyo intayna suuqa aadin mentor aan coaching in la siiyo waa arrin aad u maaragtay muhiim ah kambaniyaduna inta badan caalamka kambaniyada multi billion dollarska ku qiimaysan shaqaalaha waxay kala soo baxaan jaacadaha already programyadan oo kale ka qaataan dan saasay maaragtay shaqaalo way yar tahay qof high qualified inuu company qaato laakiin inta badan human capital baa la dhahdaa inay jaacadaha ay maaragtay sidan oo kale uga midhamaystaan dan qofku markaa kaasaana ka qurux badan qof maaragtay hadda la qaatay ayaa ka qurux badan inaad qof high qualified oo demand oo maaragtay aad qaadato horta dhalinyarada suuqa ku soo dhawaada shaqada waa dib badan yahay saad moodayseen sidii professorka iyo maaragtay teamku ay sheegeen waa suuqa maaragtay aad buu u adag yahay laakiin marka loo barbardhigo suuqa Soomaaliya iyo suuqyada kale suuqa Soomaaliya wuxuu u fiican yahay suuq maadaama 30 sano horumar badan uu inaga maqan yahay oo hadda aan rabnay inaan wax qabanno chance horta aad u badan baa yaala oo wali technicalkii iyo skillkii iyo xirfadii wali kambaniyadu ay u baahnaayeen iyo institutions wali waa maqan yahay horta dhinaca fursad buu ka leeyahay idinka markaa qofku markuu suuqa soo galayo fursadaas si guud waa u leeyahay sida kalena marketka markaan cabirayo Soomaaliya waxaan ku cabiraa market cash baa inta badan yaala oo waxa maaragtay businessyo badan baa la furayaa waa marketkan Soomaaliya cilmi kuma dhisna laakiin wuxuu ku dhisan yahay inta badan cash oo businessyo badan baa la furayaa inta badan marka la fiirinayo kambaniyadu tartama waxyaalaha ay competitive-ka inay tartamaan company kale ka dheereeyo cash bay isku dhaafaan laakiin wax knowledge based ku dhisan maaha marka kambaniyada technology-ga iyo innovation-ka inta badan ku soo gala si yar oo fudud bay Soomaaliya u guuleysan karaan taas waa mid ardaydu markay suuqa soo galaan haduuna qofku skillkii looga baahnaa marketka haduuna lahayn way ku adkaanaysaa tusaale yar oo kooban qofku waxa loo baahan yahay basic skillska inta badan computer skillska writing skillska language-kiisu inuu dhisan yahay inta badan qofkii hamigiisa waxa galaya xafiis baad ka shaqeynaysaa more maskaxdiisa waxa ku jira money oriented baynu nahay lacag baynu ka fikiraynaa iyo qofkii inuu lacag markaaba uu helo taasna way adkaanaysaa marka qofku inuu waxyaalaha basicska ah ee personal development-ka uu iska dhiso inta badanna uu yeesho dad suuqa kaaga horeeyay aad la saaxiibto inta badanna network badanna aad samayso anigoo kale markaan jaacada ku jiray waxaan saaxiib lahaa rag iga waaweyn oo wax bartay raggaasaan raaci jiray si yaroo fudud baan dadkii aan jaacadaha ama aan ku wada jirnay teamkayga ahaa anigu already 10 talaabo ama kasii horeeyay because of raggaasi maalin kasta waxaan maskaxdeeda galay bay iiga sheekeyn jireen dan maskaxdeedu baa weynaatay marka kow in lala saaxiibo ama network badan lala sameeyo qof ka horeeya si
marketka waxa jira iyo dhimaanka mar walba ay kaaga sheekeen adiguna aad isku tasho oo aad isku ekeysiiso industry-ga waxaad moodaa marka suuqa laga hadlayo wuxuu leeyahay wax la dhahdo value chains ama idinku waxaan u naqaanaa technology-ga course bay u naqaanaa laakiin suuqa industries baa la dhahdaa waxaa muqdisho hadda soo fiicnaanaya industry-ga technology-ga graphic design iyo ku jira aad buu soo fiicnaanaya waa jaacadi aad boogo laakiin waxaa jira industry kale ama baahiyo kale oo aad looga baahan yahay in maaragtay la sameeyo marka adigu wax kasta kuma fiicnaan kartid computerkii baan ku fiicnaanayaa engineeringkii baan noqonayaa wax walbaan noqonayaa marka adigu suuqa inaad fiiriso oo isku tasho wax yar oo adiga aad qaban karto aanad maaragtay ku fiicnaan karto ta ugu dambaysa anigu inta badan anaga xafiiskayga oo kale ASKCG ahaan associates wax la dhahdaan qaadanaa shaqaalaha ugu hooseeya associateskaas aan qaadano maxamed waa ku mahadsan yahay waa qofkii labaad maaragtay xafiiska KCG soo mara maxamed maaragtay aan ka wada shaqeyno qofku waa inuu lahaado willingness to learn wax dhahdo inay ka go'an tahay inuu wax barto commitment-kiisuna uu hayahay laba arday baan soo maray oo jaamacadda Muqdisho laba gabdhood bay ahaayeen anagu waxaan u dhisanahay mentoring and coaching inaan sameeyno qof zero anaga waa qaadanaa laakiin waa inuu leeyahay commitment-kiisu iyo inuu leeyahay inuu wax barto ay ka go'an tahay laba gabadhii hore waxayna la shaqeynaysay sanad iyo badh hadda Nairobi guurtay maskaxdeeda gabadha waan ka yaabnay anigu 3 months baan train gareeyay qof kale oo meeshan ka shaqeynayay xafiiskaygana oo qayb kale haystana uu train gareeyay gabadhii anaga waana dhaaftayba waxay gaadhay shaqooyinka waaweyn ee consultants-ka ugu talagalnay qayb ka mid ah iyadu inay qabato waa naga tagtay gabadh kale aan qaadanay maalin dhaweey iyadana oo processkii kale aan ku qaadanay iyaduna hadda tabtii iyo tab ka si fiican bay ku socotaa labada gabdhoodba laba shay baan ku arkay in willingness to learn ay la yimaadeen ay nacam inay waxaad u dirto wax ka badan inay keenaan iyo in ay maaragtay ka go'naato inay wax bartaan dadka qaarkood baa markay saacadday fiirinayaan maantooleen qaar waxay ku weydiinayaan lacagta ma lay kordhinaya qofkaasi rajo ma leh because of haddii commitment-kaaga iyo shaqadaada waxba ay aad u fiicnaadaan lacagta waa lagu kordhinaya raxmo kale imka internship baan ugu talagalay 3 bilood bishii koowaad bayba maaragtay intii aan u baahnaa in ka badan keentay bas mishaarkaygii toos baan ugu qornay intii ay qaadan lahayd 3 months ka bacd marka waxaan ku talinayaa suuqu ganacsatada saaxiibka uu ka mid yahay waxay u baahan yihiin qof kasta ganacsada aba wax la dhahdo persona jira persona wax la dhahdaa qofka aan u baahanahay waa ii sawiran yahay waa ku sawiran yahay inuu maaragtay criteria ugu hooseeyo uu yeesho commitment-kiisa wada shaqeyntiisa qofkaasi hadduu helo maamulka inta badan ganacsatadu lacagta kuma dhagaan haddii ay helaan qofkii ay u baahnaayeen isagaaba qofkii maaragtay uu arkay qofkii inuu fiican yahay lacagtiisa waa u qoraya waana shaqeynaya laakiin idinkiiba suuqa waxaad la soo galaysiin inaad lacag badan u baahan tihiin inaad u baahan tihiin saacadeer inaad shaqaysiin inaad u baahan tihiin inaad markaad saacadaha joogtiin standardka caadiga qofka 8 hours markuu shaqeynayo inta badan 6 saacadood ama 4 saacadood social media iyo waxbaad ku lumisiin kaana de wax yar suuqa markaa kuma jiraysiin laakiin qofku inuu 8 hours ugu shaqeeyay inuu si fiican u shaqeysto waxaan ku gabagabaynayaa Soomaali haddaynu nahay shaqo inagama go'na qof 8 saacadood raba inuu shaqeeyo kuma guuleysan karo waxyaalaha waxa loo baahan self discipline 8 saacadood ee maalintaad shaqeynayso waa inay ku qornaadaan waxaasoo dhanna waxa go'aaminaya 8 saacadood ee shaqeynayso saad u gabagabayso hal yar oo tusaale aan ku soo koobaya oo aniga naftayda aan ku talay barnaamijka la dhahdo self discipline 8 saacadood baan shaqeeyaa laakiin baryahan aan soo gaabiyey waan daaray laakiin waa ka badinid 10 hours baan shaqeyn jiray
8:30 baan xafiiska soo galaa waxaan ka baxaa bacda cishaay baan ka bixi jiray intaasoo saacadood saacad kastaba shaqooyinka aan qabanayo way ii qornaayeen waan tijaabiyey waxaan tijaabinayay 2022 ilaa 24 wixii aan qabtay activity-dii aan qabtay iyo shaqooyinkii aan qabanayay ilaa 2024 wixii aan qabtay waan hayaa computerka ku hayaa way diyaarsan yihiin every morning waxaan qabanayaa saacado way qorshaysay haddaanad suuqa ugu soo diyaar galoobin inaad u shaqayso suuqa soo gelin aan ku talinayo